بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبي الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو داود سليمان الأشعثي السجستاني رحمه الله: باب التوقيت في المسح. باب wuxuu baab yahay التوقيت waqtiyeynta fi lmasxi masaxa la waqtiyeeyey ee waqti iyo xad loo yeelay xilli iyo muddo la masixi karo. baabultawqiiti fi lmasxi koobaad xalay cashirkeeda u dambeeyey aan dhahno aakhir dars aan u malaynayaa waxaan maray sanadka ibnulhayaca cabdullaahi ibnulhayaca almasri oo culimmadu ay dhaheen ixtaraqat kutubuhu faاkhtalat ama ikhtalata bacda ma اxtaraqat kutubuhu. markii kutubta ka gubatay kadib xoogow isku darmada iyo ikhtilaad ah ayaa dhacay oo isku darmaday. qofka saas oo kale ahee la yidhaahdo almukhtalat ama almukhtalit isku darmaday, culimmadu waxay leeyihiin culamaa ulxadiid xeer bay ka sameeyeen oo ka dejiyeen haddii laga wariyo qabla alikhtilaat wax kaloo cilaan uuna lahayn intuuna isku darmanin ka hor wixii ka wariyey waa la aqbalayaa. bacda alikhtilaat iyo markuu isku darmaday maskaxdiisi iyo xifdigiisa uu xumaaday kadib wixii laga wariyana waa la daciifinayaa. haddii la wada garan waayo maxaa horreeyey maxaase dambeeyeyna waxaa la qaadanaya xagga ixtiyaadka iyo taxadarka oo waa la tuurayaa oo daciif weeyaan. marka ibnulhayaca culimmadu waxay sheegaan niman muxadisiinta raggada ugu caansan ka mida oo cabaadilo la yidhaahdo cabdullaahi ka wada bilowda oo afara inay ka wariyaan qabla alikhtilaadna ay ka wariyeen. wixii marka la arko iyagoo ka warinayo xadiidkiisa waa la aqbalayaa. habeenkaas marka waxaan idhi saan u fiirinno almawaahib addafiina, mawaahibta iyo ilaahay mawhibada uu dadka siiyey way badan tahay. dad badan oo asxaabu almawaahiba ayaa ku jira, ama isku dayaano oo mawaahibtooda soo saaraano ama sidaaba ha ku tagaane. laakiin dadku waxay leeyihiin fahan iyo mawhibo ilaahay siiyey iyo aqoon bay leeyihiin. isku day baa la rabaa qofka qariixadiisa u isticmaalo, oo isku dayguna sidiisaba wuxuu ka mid yahay waa sabab min asbaabi najaax. qofka inuu guulaysto waxaa sabab u ah oo ka bilaabanaysa asbaabta ka mid a isku dayga. daad waxba isku dayeen meesha ma gaaraysid, meeshii ma dhaafaysid. wa calayhi waxaan idhi markaa bal soo raadiya, isku daya xoogow inaad soo samaysaan nadmi afartaas nin ee cabaadilada ah lagu xifdiyo. saddex marka daalib ayaa isku day ii soo gudbiyey. runtii wayna ku mahadsan yihiin inay intibaah iyo baraarug oo hadalkii ku keenay, maskaxdoodana ay gedgediyeen oo rogrogeen. wax walbana wuxuu ka bilowdaa bidaaya, kadibna wuxuu gaaraa nihaaya, dhammaad meel ku dhammaado ama uu gaaro. walkamaalu lilah, dhamaystirka ilahay baa iska leh. marka koowaad alakh axmed, sheekh axmed wuxuu soo diray ibnulhayaca اkhtalat wa kutubuhu اxtaraqat kada naqla alakhyaaru wa naaqilu اlakhbaari arbacat min alcabaadila qabla اkhtilaadi rawow وهو ابن يزيد وابن وهب كذا القعنبي وابن المبارك روايتهم عنه صحيحة عند الجمهور ثابتة. سمعتم كاس تهرت قصدا. وهكذا سجن اسكودي الأخ عبد الشكور سجن وحصاد أفر بيت صدحهم باهنتا كسو قادنا هنا midka afaraad xogow oo yar faraq dheeraystay oo ula kalu galay
laakiin inta uu ku dadaalay een u diray wuxuu yidhi وأربع تروي من ملهيعة أو الاختلاط أو تحريق كتبه أولهم القريشي بن مبارك قريشي وابن وهب عبد الله بن وهب كذا ابن يزيد المغري وابن مسلمة فاعرف ذاك الأصح وقل لي مبارك مبارك بنينا فسلك هداك الله وهذا المسلك وإياكم إن شاء الله اسكو دقيقة لبعض يا الأخ الشكور وياه اسكو دقيقة سدحات صغنا والأخ حسام محمود صور قد بصوت يبي وصور جيه وحجري العباد الأربعة الذين رووا عن عبد الله بن الهيعة قبل اختلاطه سد عفرتي بوتريي عبد الله بن مبارك عبد الله بن يزيد المغري عبد الله بن وهب القرشي عبد الله بن مسلم القعنبي جمعتهم في هذه الأبيات حمدا لربنا صلاة للرسول وبعد أستعين بالله أقول ابن الهيعة فعنه قد روى قبل اختلاطه رجال أربعة فما رواه عنه لا يرد فاحفظ مقالي تلقى ما يراد فولد ابن المبارك والمغري ابن يزيد فابن وهب القرشي آخرهم في ذكر ابن مسلمة فهؤلاء كلهم عبادلة سمعت رجع حسن كجري ابن الهيعة كان من الثقات فاحترقت كتبه وفقد التمييز فمن روى عنه بعد اختلاطه فأهل الفن قرروا بتركه ومن روى الحديث عنه قبل ذا فصحح العلماء ولا تهمل فالمشهور عند العلماء أربعة روايتهم عن الهيعة مقبولة من العبادلة المتقنين اشتهروا أولئك ابن وهب وابن يزيد المقري فثلث ابن المبارك المروزي كذا القعنبي يا أخي فاسمع أي قصة ختمي قال وحاويان وشيخ موسى مركا وإن لا يماضي إبداع iyo hal abuur qofku wax isku dayo wayna jirta weligoodba dariiqa wax lagu xifdiyo waa la samaysan jiray dariiqa lagu xifdiyo iyo qaabaad wax ku xifdiso gaar ahaan waxyaalaha noocan oo kale ee faa'iida bal u baahan marka waa ku shukrinayaa afartaas daalib runtii dadaalay ay dhagahooda muxuu ahaa si fiican u gaadhay kadibna muxaawalada sameeyay iyo kuwa kale oo إن شاء الله فرت قرينسان وصوّده وكلا فوائد كلا كيري دونا كفوائد الفوائد المنتقات هذا سمجنا داود بلويس نوال بوق يرسم ما يستو أكو مقعابه سيد الشيخ عنقش عبد المحسن الفوائد المنتقات من سنن أبي داود السجستاني فوائد اللي قصوا أروصدي أما اللي قصوا قاطي فوائد كتاب كاساكا كجرت وحي عن مرينا على غير كل آتن قريب مالين باجري دونتا إلهنا كبر يلينو نقارسيو kitaabka nihaayadiisa iyo khatankiisa aan gaari doono insha Allah marka maalintaas qofkii fawaa'ida iyo aruursada insha Allah faa'iido fara badan baa laga yaabaa inuu gaaro laga yaabaa inuu ba ku sii keento inuu risaalo sameeyo jamcan wa tartiib uu sameeyo wuxuu fawaa'idaha la soo aruuriyo uu sameeyo kana faa'iideysto madal uga faa'iideeya isagana shaxdul himam inay u keento soofa u noqoto barakallahu fiikum ijtahidu zaadakum Allah xirsa باب التوقيت في المسح وحكو سابسن ياهي وقتيينتا في المسح لوقتيية يعني مسح وحصاو غاني إنو ياهي مشروع إنو نكمل أي مسائش متواتر كي حديث متواتر كوسا أرورتي إلى تضبات صحابي وعشرة المبشرين في الجنة كمديين إني وريان حتى أو يكمل نقطي من مسائش لو درسو علم العقائد والكلام إدى السنة لقول الردي بعض الفرق الضالة لكن وحولي مسائل فربضان مركي عموما لسكوها فقي مسائل شي يسجدها حيل هذا مسائل علماء يسكوها ايان وحكم إذا وقتك انت لما صحي صدح باوية المسافر نقيم كرها يوم والليل انت سواء انت حديث حالة كوي مات الجمهور ترى قبان هو الإمام الترمذي أوليه يقول العلماء من أصحاب النبي والتابعين ومن بعده من الفقهاء قبان سفيان الثوري مبارك شافعي أحمد إسحاق قالنا waxay leeyihiin wax waqti ama laha inta rabtaa wadi kartaa ayaduna al-Imam Malik Abu Hanifa wuxuu raacay jamhuurta asigi Awzaa'i iyo Hasan bin Salih iyo Daawud Dhahiri ibn Jarir Dabari laakiin Malik rahimahullah ta'ala baa loo nisbeeyaa inuu waqti u lahayn
masaaisha marka isku khilaafsan yahay bay kamid tahay masaladan kayfiyatu masxi baa kamid ah sida loo masaxayo daahirka iyo baatinka labada ma la masixi mise daahirku ma lagu kaaftoomi ayadana way noo imaan doontaa qaala xadathana xafs bnu cumar qaala xadathana shucba ibn اlxajaaj can alxakam ibn cutayba wa xamaad xamaadkan waxaa la dhaha xamaad ibn abi sulaymaan ustaadu abi xaniifa النعمان بن ثابت رضي الله عنه الإمام الأعظم شيخي سوي حماد بن أبي سليمان كان مسلم لنا آدي آدنا وطأثري علمي بدنا وكقاطي حتى لسوق وريه إنه مركو الدعيرة في السجود والورقي كتجين شيخي سا إنه أدعي حماد بن أبي سليمان والد كيس هو يدي يو حماد هذا صور مذهب كانوا كمذهب أهل الرأي قال يرى أبو حنيفة ومركي الضمبي هو كان كأقاضي مسائشيisa faraha badan iyo fataawada faraha badan Abu Xaniifa uu ka faa'iideystay sheekhi uu aad ugu taafuray weeyaan Xamaad oo Ibraahim ka warinaya Nakhaci waxaa la soo guuriyaa inuu tagay Maka xaj buu aaday markuu soo laabtay yuu soo galay magaalada uu deganaayo Kuufa ahayd markaasaa wuxuu yidhi yaa ahla Kuufa abshiru ra'aytu Cataa wa Mujaahidan wa Daawuusa فصبيانكم بل وصبيان صبيانكم أفقه منهم wuxuu yiri bishaaraysta reer Kuufa waxaan tagay Maka oo waxaan la kulmay ninka la dhihi jiray Cadaa ibn Abi Rabaah taabiciga kabiirka iyo Mujaahid ibn Jabr iyo Daawus ibn Kaysaan al-Yamani wuxuu yiri carruurtiina iska dhaafay carruurtooda carruurta dhali doonaan baa ka faqiisan oo aqoonta iyo fiqiga kaga fiican nimankaas marka waxaa jirtay mas'alo مذاهب باجر جرت مذهب أهل الحجاز مذهب أهل الرأي في العراق أي جر جرت مركز دمنا قلنا وحي قلبان حق أثرك يا نقلك يا أدلة سمعك كونا وحي قلبان الأدلة العقلية والأقيسة والنظر انت أصبوا يكلاهاين حتى جاء الشافعي رحمه الله تعالى ويمد فجمع بين المذهبين بين المدرستين لابد المدرسة جمعيين ويوم قياسك عقلك أنا لقيت يا نظرك لا سيما هذه شروطيس أي توفرته وقياسك ويا قياس أركانتيس أي لما يسترنتها الذي سنا أي معها اسكو حرك ارتفرع أي أصلك أما ها أطمد معها صريحة ولا واقعي أما ها أطمد مستنبطة إن لقيت كريم نصوص القرآن كيسون هذا ويشيء يعني قياسك حقا قال لي حديثة إيو مكانة ذا إيو أدلة النقل جاي مكانة إيو مرتبة ذا روش هاي مركب الإمام الشافعي وجامعي كلميي مركو اللي في كتاب كيس الرسالة وأول من ألف علم الأصول بالي لذاي وحو جمعية بين المذاهب وجبي هذا رأيي مسألة حق أصل وحماد عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت صحابي جليل رضي الله عنه ذو شهادتين قيمها بناويان dadkii wuxuu ahaa marka hore dagaalkii cali iyo mucaawiya banaanka istaagay kafa sayfahu yawma sifiin hatta qutila ammar ibn yasir fakashafa sayfahu salla sayfahu ila ammar la dilay sayftiisa dagaalka muna gelin marka ammar la dilay ayuu la soo baxay laana nabi wuxuu yiri taqtulu ammar alfi'at albaqiya wa yu'adaati marka qolada gardaran عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسح مسح على الخفين خفينك كرك لغا مسحه للمسافر بوها 3 أيام صدح مع الموت وللمقيم كمقيم كان نجينا يوم والليلة إنك مسافر كخفك قباء أما سيسيها قباء أما بوتك قباء صدح بريم وكرك مسحها ومركو ويسد كبر توير ويسد الربابة لغا مركو سوق عرمت سيبها يكرك مكمسح صدح بريم هدور بعصاحبه هكاذيو أصحر ويسد مركز كبرته كرك مكمسح ماشي لغا دقي لها هدول مقيم يا غوريسي مغاريد عديس جوغنا habeen maalin weeyaan xagee laga bilaabay isku hayaan sida marka xoog badan waxa weeyaan waa awal xadathka u horeeyay markuu intuu weysa xid asoo weysa qaba u xidho oo weysa qabka asaga intuu weysa qaba hadee weysa oo baahna waa weysa qabaay marka hore lagu dhaqay uu galiyay kadib xadath baa dhacay waxa weysada buriya weysada ayada xadathkaasi laga weysaysanay ka bilaabanaysa 3 bari iyo habeenkii maalintii قالوا وحيلي ما يوحى لقب الله يا أول المص اللمسي طبعا لمسي يحرش هذا هو الرئيس أي لقب الله بديها طيب وقال أبو داود حوير رواه منصور
ibn المctamir can ibrahim الtaymi biisnaadihi sanadkiisa qaala fiih wuxuu yihi walow biisnaadihi wuxuu ku wadaa biisnaadi xadiidi ibrahim can abi cabdillahi aljadli can khusayma bin haabit qaala markaasu wuxuu yihi cabdullaahi ee ninka la yihahdo khusayma walow istazadnaahu haddaan ka ziyaada dalbi lahayn lazaadana wuu noo ziyaadin lahaa ya marka xadiidka soo socdaa yar caddeynaya yoom hal maalin habeen maalin miya saddex mari miya ahaa wamaa shi'ta baa soo socota haddaan sii wada lahaynna wuu noo kordhin lahaa hadda wuxuu sheegay saddex musaafirka ah iyo habeen iyo maalin muqiimka haddaan sii ziyaadisan dalbi lahayn low istazadnaa low dalabna ziyaada haddaan dalbi lahayn oo ka waran shan uu sii wadi lahaa lazaadana wuu noo ziyaadin lahaa taa marka waa ra'yu raawi weeyaan walcibratu maa rawa araawi walaysa bima ra'a cibradu waxaa weeyaan madhab aljamhuur raawiga xadiidka uu wariyey manquul can rasuuli illaahi ah kaasaa la qaadanaya isaga ijtihaadkiisa naska hadduu ka hor imaada lama qaadanayo xanafiyada ayadu khilaafsan waxay dhahaan fataawida raawiga iyo ra'yigiisaa laga hormarinaya yani waxay tusaysaa inuu xadiidkii uu soo wariyey ama uunan ahayn muxuu ahaa khaas uunan ahayn ama uuba sida loo qaatay uunan ahayn xadaثna yaحya بن maciin qala xadaثna cmr بن ربيع بن طاriqi qala akhbarana yaحya بن أyub can cabdiرaحman بن raزin can mحamed بن يزيida can أyuba بn qaطn can ubay بn cimaarة qaala wuxuu yihi yaxya asagu بn ayub xadiidkiisa yaxya بn أyub riwaayadiisa uu cabdiraحmaan ka warinaya soo maray wa kaana wuxuu ahaa ninka la yihaahdo ubay بn cimaarة wa kaana wuxuu ahaa qad sallaa kii tukaday maca rasuuli الlahi salى الlaه عalيه sسلم alqiblatayn labadii qiblaba dadka nabiga la tukaday buu ahaa oo xaggaayo waxaa markuu nabiga madiine galay waxaa loo tukan jiray xaggaayo shaam iyo baytulmaqdis baa loo tukan jiray 17 bilood ilaa 17 shaku min araawi marka kadibna waa fawalli wajhaka shadar almasjid alxaraam baa soo degtay xaggaayo qiblada iyo makaa loo soo jeedsaday marka saxaabada qaarkood baa iyagoo salaadii qaar ku tukaday xaggaayo shaam iyo baytulmaqdis yaa loo sheegay oo la yihi nabiga xaggaa loo jeediyey wuxuu u jeedsaday maka markaasay soo wareejiyeen hal masjid baa marka salaadii waxaa lagu tukaday laba jiho qaar ragcadihii kamida xaggaa ayaa loo jeedsaday cagsigana waxaa loo jeedsaday ragcadihii kale masjidulqiblatayn masaajid la yihahda jiro oo madiine ku yaala annahu qaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuul allow amsaxu cala alkhufayn khufeynka miyaan masaxaa korka qaala nacam haa qaala yowman maalin miyaan masixi qaala yowman maalin haa qaala wa yowmayna laba maalmood ma masaxa qaala wa yowmayna laba maalmood ma masixi karta qaala wa alaaa saddexana qaala nacam haa wamaa shi'ta iyo intaad rabto maalikiyada daliishaday waa xadiis daciif wey xadiidka laakiin daciif weeyaan oo cilal buu leeyahay lagu daciifiyey yaxya bin ayuub kaas yaa la isku khilaafsan yahay cabdiraxmaan iyo maxamed bin yaziid iyo ayuub ibn qadan iyo raggaas oo dhanna waa majaahiil jahaala ku sugan qaala abu daawuud wuxuu yihi rawaahu ibn abi maryam almisri can yaxya bn ayub can cabdiraxmaan bn rasin can moxamed bn yaziid bn abi ziyaad can cubaadata ibn nusay can ubay bn camaara qaala fiihi xataa balaqa sabcan toddobuu gaarsiiyey toddoba ma masaxa haa qaala rasuul intaa wuxuu lahaa nacam maa badaa lak intii kuu daahirta sii wad isagona daciif weeyaan qaala abu daawuud wuxuu yihi waqad ikhtulifa fii isnaadihi xadiidkan sanadkiisa waa la isku khilaafay walaysa huwa bilqawiy xadiid qawi ana ma aha ikhtulifa fi xadiid yaxya bn ayuub yaa la isku khilaafay sanadkiisa walaysa huwa bilqawiy qawina ma aha yaxyahaas way noqon kartaa laysa biqawiy waxaa kaloo u noqon kartaa ruwaadda kale ee majaahiisha ikhtulifa fi sanadi wa rawaahu ibn abi maryam wa yaxya bn isxaaq sulayxiy wa yaxya bn ayuub wakhtulifa fi sanadi la isku khilaafay baabu lmasxi cala aljawrabayni labada jawrab oo la masaxo jawrabku waxaa weeye waa lifaafa iyo wax suuf iyo wax laga sameeyo qutni iyo oo marada lugta lagu duuba saaqeynka qabowga iyo meelaha qabowga ka jira loo isticmaali jiray waaga hore marka hadda waxaa ugu dhow ee loo isticmaali karo waa sigisyaha weeyaan xadaثana cثmaan bn abi shayba can wakiic can sufyaan الthawri can abi qays alawdi huwa cabdiraxmaan bn harwan can husayl bn sharaxbiil can ilmugiira bn shucba ana rasuula اllahi salى اllahu alيh ali wasalam tawada waa weysaystay wamasaxa cala ljawrabayn wanaclayn labadii jawrabna waa masaxay naclaynkana waa masaxay naclaynka waa soo maray haddii markaa tawadaa maca naclayhi waa soo marayo ka haddii ay lugaha gaarayaan haddii kale jawrabaynkiibuu kor ka masaxay kabihiina waa ku jiraan ilan kor ba masaxo qaala abu daawuud kana cabdiraxmaan binu mahdi wuxuu aha laa yuxadiu bihada xadiid cabdiraxmaan binu mahdi alimaam wuxuu ahaa xadiidkan maba soo hadal qaadi jir laa yuxadiu bihada alxadiid sababtu maxay tahay lianna almacruufa lianna alxadiida almacruufa xadiidka macruufka ee can ilmugiira mugiira binu shucba macruufka ka ah lagu yaqaano
waxaa weeye ana nabiya sala allahu alay wasalam masaxa cala alkhufayn inuu khufayn kor ka masaxay ee jawrabayn iyo naclayn iyo xadiidu muqiira fi saxiixayn ku sugan markuu tabuuka ka soo gadoomay waa kii aan soo marray inuu ka siibay inuu damco dacuma fa innii adkhaltuma daahiratayn korkuu ka masaxay masxu cala alkhufayn buu xadiidka muqiira mashhuur ku ah marka xadiidkan xooguu qaraaba ah iyo nakaara ku sugan qaala abu daawuud waruwiya hada ayda xadiidkan waxaa kaloo la wariyey ayda sidaasoo kale can abi muusa alashcari can inabiyi sala allahu alay wasalam anuu masaxa cala aljawrabayni mu masaxay cala aljawrabayni walaysa xadiidku bilmutasili ma aha walaa bilqawiyina ma aha laba cilo isku darsaday cadam alitisaal oo inqidaac baa ku sugan ninka daxaaq bin cabdiraxmaan la yidhaahdo abu muusa alashcari waxba kama maqal inqidaac baa ku sugan haddana wuxuu walaysa bilqawiy min xaytu lisnaad xagga sanadkana qawi ma aha ciise binu sinaankaasaa daciif ah marka labadaasi cilaba waa leeyahay qaala abu daawuud wuxuu yidhi wamasaxa cala aljawrabayn fiqigii saxaabada u imow marka fiqigii saxaabada wamasaxa cala aljawrabayn waxaa masaxay caliy bin abi aalib baa masaxay wabnu mascuudin iyo cabdullahi bn mascuud walbaraa ibni caazibin wa anas bnu malikin wa abu umaamata wa sahl bnu sacdin wa camar ibnu xurayf saxaabadaas oo dhan waruwiya waxaa intaas markuu jasmiyey yusiqatu tamriid wuxuu ku wariyey waruwiya waxaa la wariyey dalika masxuljawrabaynka can cumar bn khaaab wa bn cabaas cabdullahi bn cabaas ayaa laga wariyey marka masaladaasoo asal bay leedahay xadiistaasi walow dacfi baa ku jiraano ciladii masxu cala alkhufayn loo jideeyey oo ahayd almashaqa wa rafcu lmashaqa wa taysiir lumma ummadda in loo fududeeyana way ku jirtaa siisyaha iyo jawaaribta ku jirta marka alcila walxukmu yaduuru maca cilati xukunku sidiisa ciladu la socdaa mashaqada qof musaafira ama meel u degdegsanaya ama mar walbaba siisyahaada si walbaha dhaq culays bay ku noqonaysa baabkan hadda tarjuma umuuna keenin wayna isticmaalaan muxadisiintu kalfasli bay iska dhahaan baabun kalfasli kaa hore iyo tarjumada hore baa tarjumo u ah waxaa kaloo dhahaan inta uunan sheekhu baabka asaga bayaadka ka saarin maswadaynin yaa waxaa dhici karta inay maniyadii geerida u timid qaala xadaanaa musadad cabaad ibnu muusa qaala akhbaranaa hushaym ibnu bashiir can yacla bni caطaa can abihi qaala cabaad wuxuu yidhi akhbaranii aws bin abi aws athaqafi ana rasuula اllahi sala اllah alay waslam tawada waa weysaystay oo masax calaa naclayhi buu masaxay qadameeyo gomadihiisa qaala cabaad wuxuu yihi ra'aytu rasuula allah nabiga alay salaam baan arkay ataa calaa kidaamati qowm qolo dhiijaanteeda asagoo yimid kidaamadu waxaa la yidhaahdaa ceelal yaryaroo intii laisku dhadhaweeyo dee maaxooda iyo biyahooda hoosta la iskaga furo kadibna waxay iskugu imaanayaan ceelka u dambeeya dooxadii marka ku daadanayaan beeraha lagu warabsan kidaamati qowm yacni miidaadkii ayuu ujeedaaye miidaadka waxa lagu weysaystaa la yihahda lakin hadda waxaa loo jeedo waa ceelasha kadaamada ah meeshaas muxuu ahaa wakaabaha ama ceelasha yararka ama dhiijaamaha ee biyaha durdurayaan marka dambe walam yadkur musadad muuna sheegay almaydaata walkadaama ma sheegin musadad yaa sheegay marka cabaad baa sheegay uma itafaqa waxay isku waafaqeen waa musadad iyo cabaade markay intaa ku kala tageen fatawada waa weysaystay nabigu waa masaxay calaa naclayhi labadiisa kabood iyo waqadamay labadiisa gomadood baabu kayfa almasxu masaxa waa sidee kayfiyadiisu kor maa la masixi hoos maa la masixi qaala xadaanaa moxamed binu sabax albazaaz qaala xadaanaa cabdiraxmaan bin abi zinaad zinaadkana waa cabdullahi binu dakwaani qaala wuxuu yidhi dakarahu abi aabbahay baa xadiidkan sheegay min baab almudaakara duruqda wax lagu soo qaado waxaa ka mid a almudaakara alcilmiya isagoo qofka uu taxdiid markaa u jeedin can curwa bni zubayr buu ka wariyey can almugiira bni shucbata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alيh ali wasalam kaana yamsaxu wuxuu masixi jiray cala alkhufayn labada qof buu korka masixi jiray wa qaala kayru muxamedin wuxuu yihi masax calaa daahiri اlkhufayn kana ka cad daahiru اlkhufayn kaa hor laga fahmaya calaada laga fahmay lakiin daahir alkhufayn labada qof korkooda kore kor baa laga masaxaya lugta kufaynka iskiisa kor baa laga masixi hoos laga masixi maayo qaala xadaanaa moxamed bn اlcalaa abu kurayb qaala xadaanaa xafs yani bnu ghayaaf can acmas sulaymaan bn mihraan can abi isxaaqin can cabdikhayr can caliy bn abi aalibin qaal caliy bn abi aalib abulxasan radia allahu canhu ardaah yutaradaa kama yutaradaa liasxaabihi wa asdiqaa'ihi wa zumalaa'ihi karama allahu keligii lagu khaas yeelo culammadu waxay leeyihiin waxaa ka fiican in radia allahu la dhaho oo kasii wanaagsan nacam ridwaanu min allahi akbar naam radia allahudaasa yaa mashhuur ka ahayd salafka saxaabada in radia allahu la dhaho taabiciintana iyo waxay ka dambeeyeen raximahu allahu la dhaho hada huwa almashhuur kadib baa deen waxaa timid bacd alfiraq oo cali radia allahu canhu ku xadgudubtay oo raafidada ay kamid yihiin shiicada iyo firaqdaas marka cali radia allahu canhu iyo ahlu beytkii bay si gaara u
maaragtay waxaad dheeraadeen adagoo aan arrintaasi sawaab ku ahayn sax maaha qofkii inaad martabadiisa martabaan ahayn oo nas iyo shariico midna aad u haynin gaara aad saarto abubakar baa ka fadli badnaa cumar cumaan iyo asagaa la tartansiiyaa dhib ma leh laakiin cumaankaa jamhuurta u badan tahay inuu ka fadli badnaa sida tartiibahum fi lfadli ka tartiibahum fi lkhilaafa sidai khilaafada iyo madaxnimada u kala horreeyeen iyo fadligana u kala fadli badan yihiin waa ijmaacii ummadda ileenaya ummaddii baa dooratay oo baycadaasi dadkii u erkaayeen inuu ugu fadfiican yahay agtooda iyo mar walba ay magacaabanayeen qaala wuxuu yidhi cali oo saaxibu alfadiila waalmanaaqib aljamma fadligiisa iyo fadaaishiisun aad iyo aad bay u fara badan tahay lama soo koobi karo dadkii ugu hor islaamay buu ahaa carruurta marka laga hadlay awal man aslama wa aamana rasuul calayhi salaam buu ahaa cali bin abi aalib qaala wuxuu yidhi low kaana diinu diintu hadday ahaan lahayd bira'yi ra'yi qofka ra'yigiisiiya waxaa asaga la quman haddii diinta iska raaci lahayd lakaana asfalulkufi kufka hoostiisaa wuxuu ahaan lahaa awlaa mid ka mudan bilmasxi masixitaanka min aclaahu korkiisa in khufaynka ama sigisyaha ama waxaan la masaxayo korka kore laga nadiifiyo iyo in hoosta hoose oo carada iyo muxuu ahaa nadaafaddu ay u baahan tahay laga nadiifiyo kee caqliga keebuu keeni lahaa caqliga wuxuu keeni haddii caqli mujarada la iska raacay haddii uun nuurul muxuu ahaa ashareeca markaa aan la qaadin caqliga mujaradka hoos baa nadaafadda u baahan buu qofka dhihi lahaa laakiin caqliga waxaa la rabaa inuu sharciga raaco naqliga caqligu ma raaco taabici matbuuc markay yihiin shareecada matbuucoo la raaci iyo nuquusha caqliga iyo ra'yi lama qaadanayo meel ra'yi uu jiro nas uu jiro daliil qur'aan ama sunna qiyaas iyo caqli ma imaan karo waxay dhahaan culammadu faasidlictibaar bay dhahaan qiyaaska noocaasa faasidlictibaar qiyaaska laba jeer baa la tuuraa marna waa faasidlictibaar oo nas buu musaadamatu alqiyaasi binasi weeyaan marka labaadee la tuurana waa markuu yahay qiyaas maca alfaariq oo faracan aad asalka la dooranayso wax cillo ahoo jaamico ah oo isku xidhan maba lahaba farqi baa u dhexeeyaba labadaas xukunka siday iskugu raaci karaan marka faariq yaa jira qiyaas maca alfaariq ayib waqad ra'aytu rasuula allah nabiga calayhi salaam baasaa arkay yamsaxu asagoo masaxaya calaa daahiri khufayhi labadiisa khuf daahirkooda kore isagoo masixi ayaan arkay buu yidhi marka tan nabigaan raacaynaa oo kor in laga masaxee caqligaas sida inuu keenayaa iyo muran iyo dood lama rabo naska qaado oo raac saas weeyaan qaala xadaanaa moxamed bn raafic qaala xadaanaa yaxya bnu aadam qaala akhbaranaa yaziid bn cabdilcaziiz can lacmash biisnaadihi bihada alxadiid qaala maa kuntu uraa ayuu leh cali oo maanan arki jirin baaطila alqadamayni labada gomadood baadinkooda hoose ilaa xaqa inay u mudan yihiin baan u arki jiray bilqasri dhaqid iyo nadiifid xataa ra'aytu rasuula allah ilaa nabigaan ka arka calayh salaam oo yamsaxu masaxaya calaa daahiri khufayhi labada qof korka masaxaya markaas tan nabigaan raacay wa rawaa wakiic can lacmash biisnaadihi qaal kuntu araa waxaan arki jiray ana baadila alqadamayni labada gomadood baadinkooda hoose xaqow inay ka mudan tahay bilmasxi tirtirid iyo masixid iyo nadiifid min daahirima daahirkooda ka mudan yihiin xataa ra'aytu rasuula allah sala allahu alay wasalam ilaa nabiga aan ka arkayoo yamsaxu daahirahumaa masaxaya qaala wakiic yacni khufayb ujeeda wa rawaahu ciise bnu yunus can alacmash kama rawaahu wakiic wa rawaahu abusawda can ibni cabdikhayr can abi qaal ra'aytu caliyan baan arkay oo tawadaa weysaystay faqasala daahira qadamayhi wa qaala yidhi lowlaa anii ra'aytu rasuula allahi sala allahu alay wasalam yafcalu nabigo saa sameyn haddaan arkin baadinkaa masixi lahaa wasaaq alxadiid xadiidkii marka ayuu soo kaxeeyo oo ka sheegay nacam qaala xadaanaa moxamed bn alcalaa qaala xadaanaa xafs bnu khiyaaf can acmash bihada alxadiidi qaal low kaana diinu bira'y diintan hadday ahaan laheed ra'yi iyo in aaraada iyo muxuu ahaa caqliga qofka ay muxakam noqoto la raaco lakaana baatila alqadamayni labada lugood hoostooda hoose yaa xaqu mudnaan lahaa bilmasxi masixid iyo tirtirid min daahirihima daahirkooda kore waqad masaxa nabiyu nabiguso wuxuu masaxay sala allah alay wasalam calaa daahiri khufayh labada qof daahirkooda qaala xadaanaa muusa bnu marwan wmaxmuud bnu khaalid dimishqi almacna iyo almacna waaxid isku macno wey qaala waxay yidhahdeen xadaana alwaliid bn muslim alqurashi nin iqa weeyaan laakiin kaana yudalis tadliisu taswiya ayuu tadliisi jiray tadliiskuna waa cudur xun weeyaan ama sheekhiisa ardayga inuu rido
ama uu sheekhii yar maldaho magacaan lagu aqoonin iyo tilmaanaan lagu aqoonin dadka u sheego oo deena la garanba waayo, bale inuu waxaa la rabaa sheekhiisa qofka uu ictaz bisheekhihi ayaa la rabaa. waana soo sheegnay hadda ka hor fii bacdi duruusina inay salafu lumma iyo a'immatu alkibaar culammada waaweyn ay isku raaceen ana barakata alcilmi caswuhu ilaa ahlihi. barakatu lcilmi caswuhu ilaa ahlihi. cilmigu barako wuxuu ku yeeshaa qofkii aad ka qaadatay inaad u nisbayso, inaad tadliisiso ood qariso ood ma ah. waxyaalaha qariibkay ka mid taha hadda, waxyaalaha qariibka ah xataa bacd alasaniid oo la bixinaya waxaa soo baxday nooc tadliisa ka soo baxay, isqaadu sheekhi wa an yarwiya can man fawqahu uu ka wariyay, waliba can una ka warinayna sanad sariixa walciyaadu billah. nacam hadi musiiba cadiima weeyaan. marka way haddi alwaliid binu muslimkaasi marka wuxuu ahaa nin hiqaal, laakiin hadduu can ku wariyo sida baqiya binu waliid oo kale u ahaa, tadliisu taswiya ayuu isticmaali jiray. qaala maxmuud asagu wuxuu yihi waa sheekhu abu daawuud ka soo martay, qaala akhbaranaa thawr ibnu yaziid, marka akhbaranaa buu kaga qaaday can rajaa ibnu xaywa, thawr ibnu yaziid can rajaa ibnu xaywa can katib almugiira. marka xadiidka cilal buu leeyahay. can katib mugiirata mugiira kaatibkiisi ibnu shucba can mugiira bn shucba ayuu ka wariyey. qaala wuxuu yihi mugiira wada'tu nabiya sala allahu alay slam, nabigaan u weyseeyey fii qaswati tabuuka famasaxa cala alkhufayni, labadii khufku kor ka masaxay, wa asfalihimaa hoostana waa ka masaxay. daciif fii dikri asfal, intaa daciif weeyaan. waxaa loogayahay xadiid mugiira fi saxiixayn masaxa calaa khufay, korkuga masax. xadiidkan isagana dacfi baa ku jira, dacfi baa ku jira, cilal buuna leeyahay oo lagu daciifinayo ka mid tahay. abu daawuud midkan uu sheegay qaala abu daawuud wabalaqanii waxaa isoo gaadhay anahu lam yasmac thawr, inuuna thawr ka maqal hada alxadiida min rajaa inuuna ka maqal baa isoo gaadhay. marka inqidac baa ku sugan, inqidac baa ku sugan. ayib kaatib almugiirahana waa majhuul oo lama yaqaanaa la yidhi, laakiin waxaa soo aroortay inuu yahay waraad, marka jahaaladii ba ka baxday isagu oo dhib ma laha, waraad weeyaan. baabu fi lintidaaxi, wuxuu ku saabsan yahay intidaaxi rushaynta maxaa loola jeedaa? yani qofku markuu intuu isjeysto u weysaysta kadib inuu meeshaasi muqaabil dakarka iyo xubinka taranka ku toosan inuu biyo iskaga shubo oo marada korka biyo kaga shubo. maxay tahay faa'iidadu? dafca lilwaswasa, waswaaska ayuu iska fogeynayaa. hadhow hadduu yidhahdo waraba qoyaan kaa soo baxay oo waxaa biyihi ku shubtay weeye in la yidhahdo, shaydaanka ilan waa ku siraya adna inaad sirtaa la rabaa, oo waswaas buu ku gelin oo waxbaa kaa yimid iyo waxbuu ku dhihi. marka biyaad ku shubi, markuu ku yidhi waxaa kaa yimid maya wataan ku shubaad dhihi, halkaasuu dean ku cararaya, midaan ku shubay weeye. qaala xadaanaa moxamed bnu kahiir qaala akhbaranaa sufyaan can mansuur can mujaahidin can sufyaan bn xakam athaqafi aw alxakam bn sufyaan athaqafi, sida xooga badana waa xakam bn sufyaan walaysa sufyaan bn xakam. qaala kaana rasuulu llah, nabig alay slam wuxuu ahaa idaa baala markuu kaadiyo yatawada u weysaysan jira wayantadix, waana rushayn jiray, waa firfirin jiray, biyuu ku shubi jiray markuu weysaysta kadib ayuu ku shubi jiray. qaarkood intidaaxa waxay ku tilmaameen istinjadii biyaha lagu weysaysan jiray, laanna axjaar bay inta badan isticmaali jireen. mararka qaar intidaax oo istijaa bilmaa biyaha lagu weysaysta iyadana waa dhacday. marka tan galo la ka kaxo. qaala abu daawuud waafaqa sufyaana, sufyaan waxaa waafaqay jamaacatun, jamaacada safaacilkeeda. waafaqa sufyaana, sufyaan waxaa waafaqay jamaacatun baa waafaqday, calaa hada alisnaadi bay ku waafaqeen sanadkan sufyaan. qaala bacduhum waxay dhaheen alxakam ow ibnu lxakam, xakam ow ibnu lxakam bay dhaheen. qaala xadaana isxaaq bn ismaaciil qaala xadaana sufyaan huwa ibnu cuyayna can ibn abi najiixin can mujaahidin can rajuli min haqiif, nin reer qabiil wey haqiifku. can abihi aabihiis qaala wuxuu yihi ra'aytu rasuula allah, nabiga alay slam baan arkay oo baala kaadiyey uma nadaxa farjigiisi biyo ku shubay markuu weysaystay kadib. qaala xadaana nasr bnu muhaajir qaala xadaana mucaawiya bnu camr qaala xadaana zaa'ida ibnu qudaama can mansuur ibn muctamir can mujaahidin ibnu jabrin can alxakam huwa ibnu lxakam
أو ابن الحكم عن أبيه أبيس مكوريي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذا ثم توضأ ونضح فرجه ذا سوي بيكشوي باب وحكو سبسيا ما يقول الرجل منك وحده إذا توضأ مركو ويسيستو ويسد اللبقو دعاء كدم بيسي أذكارت كدم بيسيو فأنا لقى الله يا قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي قال سمعت معاوية مقرؤ يعني من صلاح يعني من صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال عقبة بن عامر قال وحيري كنا وحانهين مع الرسول الله النبي عنه والله صلى عليه السلام خدام أنفسنا نفتح نذك وأخذ ما ينهان جري خدام أنفسنا معقوضة واحد خادم ومركز دمي فتوحات الله هلاي أضام الله هلاي خادم الله هلاي كهر بكاضة يا نفتح نذك أخذ ما ينجري واحد أخذ ما ينهي كلمة جري ولا هذا راعينا هذا واحد كرسنا هذا واحد قانينه خدام أنفسنا بناين نتناوب وحنكون موركيسن جري الرعاية جيل راعة جيل راعديس أورت جديد كأودني راعديس أكون موركيسن جري تناوب وحويان إن وحده السقوط الصلاة قرار من أي راعده وما أنتوا ما أنت هذه الراعة الصلاة رعاية إبلنا كبدلوه جيل أنا الراعديس يوي أيام كون موركيسن جري الرعاية إبلنا فكانت وحي ما طي نقطي وجدت علي كركيجا رعاية الإبل كانت وحي علي كركيجا رعاية الإبل جيل الراعديس أنا يقصوا هذا ما أنت هذه أنا ما أنت لها إنه وين وحي حيرة والله ليه أضرع به هذه ذاتك أي كم هالشيئين أنا ما أنت هذا قندا يهردا يوحى سكوك رد يوحى جرم ما هذا حاجة حوق عبيد اللي هذا حول الرعب أنقف يعني أي أجرا حولها وين الرعب قندا كقاضي وقندا أنا أصاب حد الله حولها قندا وبقاضي ورقة من الدين باندورا مسكدي دين باندورا مسكدي حولك عرب عيدها نوقتها أنت أبوه ويلك فريد كإيه حولها الراعي بارق إيه حولها سبع الراعي كان كمان مرموده حولها الراعي متك حولها مارت دروغ السيئة مقشة حتى نبتكو كينين أما اسك جوجوس كا ملا اسك شنو ده كاسو حدي بالكنان دينك مركا ساسي دان الحمد لله دد wanaagsan waa jiraan oo xarurtooda marka horeba fiinka fahankiisa khayrka diinta uga faa'iideeni ayay waa jiraan طيب maalintaydii baa timid farawahtuha geeli baan soo xareeyay bilcashi galabti ama galab oo xilliga maqribkii yaan keenay biiri cashi geel waqtiga xoolaha kale la keeno baa la keeni jiray inkastoo qaarkood ay dib dhigi jireen oo catama iyo cisho geelmaal ay dhigi jireen laakiin waxaan hadda 6 saac oo habeenimo la keenayo ma fiicna فأدركت رسول الله نبي عليه الصلاة والسلام بان سو غاري جيلي بو كيميد ولو خجيد 10 كيسينا مركو ما نبي عليه السلام بو قادنايا فأدركت رسول الله نبي عليه السلام ما سو هلا لو يخطب الناس كو خطبيناي جيلي مركو خريي بو اسكو سي دايay حلقه النبي عليه السلام نبي خطبين او ددك waxa uu sheegaya فسمعت وحان مقل يقول نبي قوله ما منكم من احد idinka qof inaga mid maaha yatawaddaa weysaysanaya fayuhsinu alwudu'a weysada hagaajinaya thumma yaqumu kici فيركع ركعتين لما ركعة تكري مركو ويسيست كدب يقبل عليهما لما ركعات مقابلين أيوه بقلبي يسيا وجهي يسيا وأنا الميلة أنا جسمي يسيا حمني يسيا إلى دقائق هنا ميلة في فيرين قلبي يسيا وحسلوية سامين بين سكولة يهينو حركات قفك هدو جوجي دقائق قلبي يسيا مركاسي وحسلها لكن هدو دقائق سو قلبي مرة بالراعة يلا الصعدة مركا يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا هذه له القف سيدا أنت ويسا تامة هذا الله رقعضات أو خشوع آية كذا إلا فقد أوجب كاس جن واجب سدي أوجب خير يا جنة يا رضا إلهي أي واجب سدي بالي سمعت فقلت وحاني لي بخ ما أجود هذه واحد كفر حضاء أولا سن مكان مقشو يا الله استعمال بخ نوع بيرقي فرحة ويان بخ ما أجود محاكونا هذه كلمة إيا نوع هذا النبي محاكونا انت ويسيستو تكتو إن جنة هليسو فقال الرجل نبا وحجر بين يدي هرتيد الجوغي يا وحجر الله تي قبلها كلمة كهر رئيسي سوى قارن يا عقبو أجود منها كلمة كسي فعلات تكسي قيمة بضان أياك يا كدافتي بير كدافتي جيلة كم مغنية
التي قبلها يا عقبة أجود منها فنظرت مركزان في قفكا إلى هذلي فإذا هو عمر بن الخطاب وينك السلاء يقوله قلت وحال ما هي محيتها مدى ونكزني دافتي يا أبا حفص أبا حفص يو عمر كنيدي سوي أبا حفص قال وحيري إنه النبي عليه السلام قال وحيري آنفا مردو أنت قبل أن تجيء على ما إيمان وحو النبي يجري ما منكم من أحد إذن كقف إنك بد معها يتوضأ ويسيسني فيحسن الوضوء ويسد الهجاجني إحسان الوضوء إسباغها إن صفع الله لما يحملها لو قارسيو حمل والبوسط شهر لا ثم كذب يقول مرة حين يفرغ مركوب من وضوئه ويسديسي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انت مرة إلا فتحت له على الله فريا أبواب الجنة الباب هذا الثمانية سدادة يدخل وحوك قلايا من أيها سدادة الباب ديو شاء دونه انتو ويسيسادو شهادة سليم هذا البابه جنة سدادة بو الله فريا مدو ربك قلايا بابها جنة سدادة الباب باب الجهاد وكميديا باب الصلاة كميديا باب صدقة وكميديا باب الريان كميديا سدادة الباب إلى أبو يرى هذا نينكي أبو بكر الصديق نبي الله هل الباب وقفك الجنة وكقله يابا كفلا نينكي الباب كان الجنة كقل يرى هذا وجودها الجنة سكوب صدو كاس آخرية دوب واللي كوالي بانيه فوزا اللي بان بو هلايه ما جرت قف البابها من لو يري ما كسو النبي نعم وارجو ان تكون منهم وكما قال ان كميده هذا كواس كجرتان رجانا يا بير ما خسار الخير رب ابو بكر ليمت نعم قال معاويه وحجر وحدثني الربيعه بن يزيد عن ابي ادريس عن عقبه بن عامر بس تابعه قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المغري عن حيوة بن شريح عن ابي عقيل عن ابن عمه عن عقبه بن عامر الجهني ومجاهيل عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ولم يذكر امر الرعايه مشيين قيل راعديسي iyo mulkaysi lagu maalmaysanay iyo قال عند قولي مركو فاحسن الوضوء يري وحجري ثم رفع نظره نينكي ويسدا wanaajiya oo deena ثم رفع نظره araggiisa kor u taagay ila samaa cirka fiiriya markuu weysaysta kadib oo faqala yiraahda ashhadu an la ilaha illa allah وساق الحديث بمعنى حديث معاويه حديث ضعيف ويان باب الرجل نينكي او يصلي تكن الصلوات صلاته او اذل بوضوء واحد هل ويسه صلاه او هل ويسه كنت كاني hadii kaaburi weysada hadii kaaburin intay weysada qabto salaadii oo ma ku tukan karta fardan wa naflan wa ku tukan karta sunniya farad waxa laga weysaysto waxa way xadadka way al hadath hada hadath huwa dhicin weysada kaaburin salaada waa tukan karta قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عمر بن عامر البجلي قال محمد صلى حويري ومحمد بن عيسى هو إن كان عمر بن عامر البجلي ليري أبو أسد بن عمر وي ذا سكريه عمر بن عامر البجلي هو صو أبو أسد بن عامر وي أنت وحرعي محمد بن عيسى طباع شيخ أبو داود البغدادي قال وحويري سألت وحاويدي أبو أسد كاس أنس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء ويسدبا ويديي فقال وحيري كان النبي عليه السلام وحوى يتوضأ كي ويسجد لكل صلاة والبو والسجر صلاة والبو وكنا أنه سوحانا نصلي كوتك الصلوات صلاتها بوضوء واحد هل ويساء دي نقبل ويسجد كنجر نبي صلاة والبو ويسجد حق مارت تجديد الوضوء بالي هذا ويسعسبونيسين النبي قبلك هو لي ما جري markii dambe iyaduna fathu Makkah ana soo socdo xadiis soo ma ka tagay nabi xasan hal weysa uu salaadii ku tukaday قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال حدثني علقمة بن المرثدي عن سليمان بن بريدة عن أبي بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال صلى رسول الله النبي عليه السلام باتك يوم الفتح 5 صلوات الشمس العظيم بوضوء واحد هل ويساء ومسح على خفيه لبدي خفيه وقربه كم مسح فقال له عمر باوحكيري إني رأيتك وحانك وأركان رسول الله صنعت إلى سميس اليوم ما أنت شيئا شيء لم تكن هذا نهاجر أن تصنعه كي سمايا صلاة وبهو سيسجرت هذا السير صلاة وبهو سكتكت يمسح على الخفين قال النبي وحير عمدا صنعته كسبا نسميه النبي عليه الصلاة والسلام عمدا صنعته سهوي يهلمان ما هي وارنا أكسي وهو إبن أنتهي من باب بيان الجواز
bannaan tahay wey fadiiladii haddaad igu taqaana way salaad walba inaad u weysaysto tanna waa bannaan tahay weeyaan marka waxaa weeyaan qofka weysada markay ka burto buu weysaysanaya waajibka markaas imaanaya baabu tafriiqi lwuduu weysada oo la kala geeyo waxaa jirta markay laga hadlaayo culamaa ulfuruuc weysada waxaa la yidhaha atartiibu walmuwaalaat baa jira atartiibu walmuwaalaat in la xiriiriyo oo xubin walba xubinta ka horeysa aan laga kormarin ta hore lasoo wado oo wejigii iyo muxuuha gacmihii iyo masxigii iyo lugihii dhaqid tartiibkiisi kama dakara allahu fi laaya si ilah qur'anka u sheegay subxana wa taala tartiib wey muwaalaad kale waxaa weeyaan xubintan markaad dhaqdo intayna angegin xubinta kale inaad ka gaarsiiso dhaqdo yaa muwaalaad la yihahda mawaajiba mase waa sunno iyo khilaafka taagan la isku hayaa khilaafkuna waxaa weeyaan fi ikhtilaafihim fi fahmi hada alxadiid xadiidkan fahamkiisa isku khilaafsan yihiin xadiidkan laftirkiisa la isku hayaa sabab khilaafku waa badan yahay waxyaalaha keena قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة مقلوه قال يري حدثنا أنس بن مالك أن الرجل نبا جاء يمد إلى الرسول الله نبي عليه السلام والحال قد توضأه ويسيستنين كاسي وتركه كتغي على قدمه قمديس يلوكتيس مثل موضع ظفري عد ميلا دغو إن عددن أيو كتغي به ورقارسينين وهو يسيستن لكن إن يربى كعد لوكتيس أو عددن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بايري ارجع نقو فاحسن وضوءك أرض ويسد هذا سوها جاج سمعت أحسن وضوءك بايري مركا إحسان الوضوء إعادة الوضوء فرق بقول حي إليه قال هذا قبت موالات رحمة شرط إلى نهين وحي إليه ننك وحاول أمري هجاج مركا ويسيستي أو يمد نبي يمد عليه الصلاة والسلام ترك نبي عركبال ننك أسكبنا ويسيستي صاب الله ولا مدين ويسيستي هجاج بالير هجاجين تروح وياه وحي على الله يسير لقتي ماشي كدق صوت وياه وهذا دليل على أن الموالاة ليس بفرض موالاة كأنه فرضهين هي تسعي سبعينها كونوا عليهم ارجع فاحسن وضوءك وحويان ويسد هجاجين وإن لولي ما سيد مشروع هاد سيد مشروع هذه لولي ما ويانا ويسمجر توي رواية كلا يدشر يانو أعد الوضوء سعدي قال أبو داود هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم الأمية قال ولم يرويه كما وري إلا ابن وهب وحده كريه كوري وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري يروي عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حلمذا قال وحسن يرجع نقول فأحسن وضوءك ويسد هجاجي سيارة ملمتها قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة حديث قتادة وحلا معنى أي شيء تابعوا ويرجعوا فيه حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية بن الوليد الحمصي عن بحير هو ابن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي وكوري بعض أصحاب النبي لما له صحابة بديين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا مبارك يصلي تكر وهو في ظهر قدمه سمعت وسوي زي صلاة بكل جلابة لقتي هراء انقلتي حبنيه كره وفي ظهر قدمه قمدي سعرتي ظاهر كذا قرانا لمعة باكم مقطع دلال لمعة دلال وحكى دلال يا ميل بنان وعط ده بك شركة أنت سكلا لقوي إن جر لقطر أنت سيجارة وعدانس لمعة سوى قدر الدرهم شيل قدر كيا لم يصيبها الماء بيا أين جار فأمره النبي عليه السلام وحوى أن يعيد الوضوء والصلاة أرض ويسير السعلي صلاة السعلي مركا دي وقت الدار أولى حيث وأين هذا ويسير تبي سعلي سوي ما يشهد ضفر ليس بالمري باب وحكوسها بسنية هاي إذا شك هدو شكية في الحدث قف حدث كيبو شكيي يعني ويسير مكان برتي مسكان بورين بكل شكي حدث كوامتك ويسير واحد بريه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بوحى الله شيء الرجل يجد شيئا واحد ريما في الصلاة قد واحد ريمي حتى يخيل إليه إلى الشك الجلي أو اللوم الجليو اللوم الجلينا يعني خيال يشك بها الجليه حتى يخيل إليه نعم أو يخيل أملي وحمارتي له كصباحي وحينه كصباحي بأملينا يا ونافي وكتمت مركو تكد هوا وحسني وحبك عيب الشيطان كل ما يلبط مكو يستاجي نينك وحلو يستاجيون صلاة دو قلبه وصلاة دو كجلبه وحبك يدريمي فقال نبي وحوي نينك الله الشيء ولي نينك وحاسة هايستا
wuxuu yidhi laa yanfatil ayaa yidhi laa yanfatil yuuna gadoomin salaaddu ku jira yuuna ka gadoomin xataa yasmaca sawtan ilaa uu sawt ka maqlo hoos ow amase yajida riixan ur uu ka dareemo labadaa uma lagu yaqiimin karaaye marka waxaa loo jeeda waa u yaqiintii wey waa dhici kartaa qofka inuuna sawda maqal riixda iyo suudhana wax maarata ka dalfiya ay jiraan laakiin uu yaqiin u huba in wax ka soo baxeen marka waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan waxyaalaha calaamaadka lagu yaqaano ee yaqiinta faa'iideynaya arrimahaas ay qabsato marka xadiidka waxaa weye waa asal wuxuu u yahay qaacida sharciya min qawaacid الsharci ka mida waxaa jirta qawaacid shan ah oo la yihahdo alqawaacid alkuliyaat alkubraa alqawaacid alkuliyaat alkubraa oo masaa-isha fiqiga oo idil ay soo hoosgalaan shanta qaacida haddaad xifdiso qaacido walba waa kuliyaat kubraa kuwo waxaa jira kuliyaad oo kubra ahayn kuwo farciyaha jira oo ka farcama ayaa jira dawaabid baa sii jirta masaaisha markaa haddana maarata kasii amile waxaasoo dhan baa saa isku hoos jira laakiin qawaacidda haddaad xifdiso waxaa ku sahlanaanaya in malakadaada fiqiga ay kor u kacdo oo wax allaala wixii masaa'il ahaa ee mutashatid ahaa oo kala tagsanaa aad ku soo aruuriso taxta qaacida waaxida hal qaacida shanta qaacido ta koobaad yaa sheegi kara alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiin haddaad haysato shaki kugu soo dariyey yaqiintaa ma zuulin karo yaqiintaa asal oo lagu dhagaranaya ilaa yaqiin kala ad hesho waysaad qabtay yaqiin baad u hubtay inaad wayse qabtay amaad waysadii kaa burtay iyo musqush gashay waxaaso dhan shakigaasi la qaadan maayo ilaa yaqiin aad hubsato waysadii kaa burtay alqaacida aaniya qaacidada labaad ya almashaqatu tajribu taysiir qaacido walbana waxay leedahay adila naqliyay leedahay mashaqo hadday timaado sideedaba qofka uunan mashaqada laga hadlayana waa mashaqada muxuu ahaa qofka uunan wadi karin wixii taysiir iyo fudeed ayuu marka qofkii ay usoo jiidaysaa waa masaaliisha faraha badan dee rukaska abwaaba rukas oo dhan baa soo gelaya abwaaba rukas waad soom baa la gaaray waa jiratay faciddatu min ayaamin ukhra musaafir baad noqotay faciddatu min ayaamin ukhra istaagii baad kari weeday faqaacidan fadhiga marka almashaqatu tajribu taysiir nacam alqaacida thalitha tasaddexaad alumuuru bimaqaasidiha wax allaala wixii niye u baahan oo idilba noocay ahaataba niye kaaga baahan ama cibaadaad ha ahaato ama mucaamalaad ha ahaato maqaasidii ha noqoto ama ankixadii ha noqoto wax allaala wixii niye u baahan qaacidadaasi soo hosgeli alumuuru bimaqaasidiha xadiidkeeduna inama alacmaal binniyad wey nacam qaacida araabica qaacida afaraad ya aldaruura tubiixu lmaxduuraat haddii wax xaaraana ay naftaada khatar gasho si kale aad naftaada ay khatar gasho shayga xaaraan laga xarimay naftaada waad ku badbaadinaysaa bakti baad aragtay adoo naftaba kaa baxaysa wax xalaalan waad weyday baktigaasaad cunaysaa ilaa nafta aad kusoo noqoto oo hadda inaad gaajo u dhimanaynin aad soo gaadho wadaruuratu tuqadaru biqadriha qadarkii daruurada waad ku joojinaysaa ayb qaacida alkhaamisa walakhiira ya alcaadatu muxakama caadada sheega caadaadka iyo curfiga dadka iyo dhaqanka dadka haddayna wax nas ahoo wax xadido aan la haynin ayadaa lagu kala baxaya lagu kala xukuntami ayaa lagu xukuntamaya curfiga iyo caadada waa isku mid waa laga hadlaa laakiin waa isku dhow yihiin curfiga dadka iyo caadadooda ama curf caam curf khaas baa jira waa lagu xukuntamaya ayib oo waxaa weeyaan wacaashiruhuna bilmacruuf bu ilahay leh wacaashiruhuna bilmacruuf nafaqadii iyo mucaasharadii gabadha ee maarata ay xaqa u lahayd lama xadaynin raashinka intaasi hilibka intaa oga dhigso wax walba kaashka intaasi lama sii gelin shareecada maysay gelin curfigaa loo celiyay iyo caadada iyo dadka adiga oo kale ah si ay reerahooda u dhaqdaan haddaad muusir tahay maca almuusiriin kuwa xoolaha labaad sidooda nafaqa u bixinaysaa kuwa dhexdhexaadka kuwa fuqaradana sidaas weeyaan qolo walba naam inkastoo haweenku aynan ogoleen inay tabarta ninkooda xaraj bay gelinayaan inta badan la sheego la soo wariyo ana istiqraa ma hayne laakiin dabeecada inta badan calacalka yeerayo ayib iyadoo nin faqiira qabta oo qabo oo tabartu iska yar tahay waxay doonaysaa inay u noolaato sida dadka dhaqaalaha leh inay u noolaatay dooni marka inay dayn ku geliso oo muxuu ahaa dhibaato ay imaato ayaa meesha imaanaysa qof walba tabartiisa waa inuu ku kaaftoomo wasal اllaha min fadlih ilahay fadligiisa weydiiso daynna ha qaadanin xaaraanna ha raadsanin naam maartay
deen aad bixin karin hadda marka xadiidkan wuxuu asal u yahay qaacidadaas al-yaqiinu laa yazuul bishak haddii aad yaqiin u hubtay inaad weyse qabtay ama weysadii kaa burtay oga bixi maysid waa jamhuurta culummada qaacidadaasay qaateen mutlaqan maxaa laga wadaa sawaaء kunta fi salaati dakhili salaat aw kunta fi khaariji salaat markaa shakigan uu kugu soo dariyey haddaad salaad ku jirto iyo haddaad salaada bannaanka ka taagan tahay labadaba isku mid mooyaane alyaqiinu laa yazuul bishakin baad ku dhagaanaysaa yaqiin baad ku soo codsiin waxaa khilaafa alimaam maalik imaam maalik raximah llahu tacala isaga wuxuu leeyahay masaladan qofka salaada galay isagoo weyse qabay oo yaqiin u hubay shakiga salaada dhexdeeda kusoo dariyey midkaa weeye midka aan yaqiinta la qabi ee laga noqonaynin laakiin adoo salaada gelinba hadday weysadii shardiga aheed haddii baa taa waxaa la isku haysto salaadna aadan gelin waa inaad soo weysataa buu leeyahy oo qaacido kaleo farci ah buu la soo baxay oo la yidhaahdo ashaku fi shardi maanicun min taratub almashruud ashaku fi shardi maanicun min taratub almashruud shardigii weysada waa shardi haddii laga shakiyo mashruudkii oo salaadii ah buu mancinaya ashaku fi shardi maanicun min taratubi almashruud xadathana muusa bn ismaaciil qala xadathana xamaad qala akhbarana suhayl bn abi saalixin can abiih can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam qaal ida kaana axadukum axadkiin markuu fi salaati ku dhex jiro xadiidkii maalik qabsaday fawajada uu dareemo xarakatan xarako fii duburihi dabadiisa axadaa weysadii miyuu ka burtay xada baa ka yimid oo mase lam yuxdi xada iyo weyse kama burin faushkila shaki la geliyo caleyh korkiisa ishkaal iyo shubha la geliyo falaa yansarif yuuna ka gadoomin salaada xataa yasmaca sawtaa ilaa dhawaaq uu ka maqlo aw yajida riixan ama ur uu ka dareemo wallahu aclam billahi towfiq sala allah wasalam aleyh